soo dhawaada saaxiibayaal mar kale muuqaal cusub iyo maalin cusub. Maanta waxaan joognaa masallaha sare magaalada Hargeysa, halkaas oo jawi bedelasho aan kusoo qaadanaynay. Waa maalin Jimco ah. Maanta magaalada Hargeysa waxaa ka da'ay roob aad iyo aad u weyn. Roobkaas oo jawiga magaalada Hargeysa wax badan ka bedelay. Maalmihii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa roobab aad u wanaagsan ayaa ka da'ay, kuwaas oo jawiga iyo cimilada magaalada Hargeysa wax badan ka bedelay. Soo dhawaada saaxiibayaal, muuqaalkeenu maanta arrimahaas u daarnaan doonaa. waxaana lugeyn doonaa qaar ka mid ah waddooyinka masallaha sare ee uu dowladda hoose muddooyinkii ugu dambeeyay ay dhisay. saaxiibayaal muuqaalka maanta waxay igu weelinayeen legend sare Cabdikariin. Soo dhaw saaxiib Cabdikariin. Maanta maxaad leedahay? Waxaan joognaa masallaha sare ee magaalada Hargeysa, halkaas oo jawiga ka jira oo aad iyo aad u wanaagsan yahay maadaama galabta roob aad u wanaagsan oo ka da'ay. Maxay kula tahay maanta? Bal fikirkaaga iyo aragtidaada ka dhigo. saaxiib assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore ardayga riwaan aad iyo aad baan ugu dhawahay, in badan waan rajeynaya inaan kasoo qayb galo barnaamijyada aad duubeyso ama aad diyaarinayso. biijkaagana aad baan ugu faraxsan inaan kasoo muuqdo. maanta waxaynu joognaa dee dhulkaa quruxda badan maasha allah, jawiga degan kolley iska soo gartaa jawiga iska soo bedelin. waa maalin Jimco ah, waad arkaysaa dhulka qurux, jawigu maasha allah, dhulka roob qurux badan baa da'ay maanta, jawigu waa alxamdulilah wallaahi. hay aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdikariin. waan ku socon doonaa insha allah muuqaalkeena. saaxiibayaal, dhulkan cajiibka ee barwaaqada badan ee ka jirta aan joognaa waa masallaha sare magaalada Hargeysa. dhulkan waa dhul aad iyo aad u cajiiba. waa dhulka ay dhowaan reer Hargeysa u soo guri doonaan. waa duleedka sare ee madaarka. waana dhul aad iyo aad u siman oo falaad ah. waa dhul maasha allah qurux badan. yow anigu waddaan garanaysa xoogaa istaagmaan baloolka seesan laaba. marka maanta halkaasaan yaro lugeynaa. goorma lugta ugu dambeysay Ridwaanow? niyow wallaahi inta badan lugta anoo dadka aad ka lugayaan ahay, marka waa suuragal in maxay ahayd lugtii ugu dambeysay ana saawsi fogeyn oo muddo dhaweed ahayd. marka saaxiibayaal, halkaan lugeynana waa dhulka cajiibka ee u baahan in jawiga iyo waqtiga lagu qaato, oo maalmaha fasaxa ama maalmaha nasashada oo qofka jaanis haya uu soo lugayo, oo guryaha iyo waxaan la fadhiyaa laga kaco. marka Cabdikariin, maanta jawigan siduu kula muuqdaa? jawigan wallaahi saaxiib aad iyo aad iyo aad u qurux badan. waxa weeye jawi lagama sheekeeyaan. alxamdulilah maasha allah, nimcaad da'day, roob baa da'ay, biyo imika waad arkaysaa meelahan way ku wada jiraan, meelahan way soconayaanba. marka aniguna saa daraaddeed baanu idinla wadaagna idinka farxaddiina ka shaqeynaa lena inaan video idiin soo diyaarino, jawiga qurux badan nala qaadataan, idinkoo qalbiga nagala qaadanaya. muuqaalkana subscribe-ta, share-ta, like-ta inta la ogaada saaxiibaya.